tilaabo kasta oo xukunka qaado khatar mid ka khatar badan ma jiro aan ka ahayn midan nuclearka. In 2015, the previous administration joined with other nations. 2015 maamulkii hore iyo dalal kale waxa ay la saxiixdeen heshiiskan waxa loo yaqaanay JCPOA oo ah heshiis wadajir ah oo dhinacyada u gaareen. heshiiskaasi waxaa loogu talagalay in lagu difaaco Mareykanka iyo xulafadiisa lagana ilaaliyo bom ay isticmaalaan nucleara wadanka Iran. waxaa la ogolaaday sidii ku sii socon lahaa in Iran ay sii wado howlaheeda inay tayageliso waqti kadibna inay gaarto in ay samaysato hub nucleara. waxaa laga dabciyey cunaqabatayn curyaaminaysa Iran taa beddelkeedina waxaa loo ogolaaday inay joojiso arrimaheeda nuclearka. howlaha guracan ay ka wada Syria, Iran, Syria iyo Yemen iyo meelo kale. haddii si kale loo dhigo Mareykanku wuxuu isticmaalay awoodiisa ugu weyn waa wadan argagax fara badan leh. waxaa lagu abaalmariyey balaayiin dollar oo abaalmarina. heshiis wax ku oola ayaa la saxiixi karay laakiin lama saxiixin. heshiiska waxaa ku jira waxyaabo fara badan oo khuraafaad ah. waxay sheegeen in arrintaas uu ahaa barnaamij nabad ah oo lagu sameynayo qarad mataqaana ammaan. laakiin warkaasi waxa uu noqday mid been ah. Israa'iil ayaa waxay soo saartay macluumaad la xiriira oo faahfaahsan arrimaha wadanka Iran ee nuclearkiisa. waxa ay daba socdaan oo ay rabaan inay samaystaan heshiiska wuxuu ahaa mid dhinac kaliya u janjeera mana ahayn marnaba in la saxiixo. ma keenin nabad mana keeni doona nabad. inta ilaa iyo inta heshiiskan la saxiixay miisaaniyadda wadanka Iran waxaa military ahaan ay kordhay 40%. ilaa iyo inta cunaqabataynta laga qaaday lacago fara badan ayay heshay ay ku dhisato gantaaladeeda ridada dheer iyo in ay maalgeliso argixisada ay gobolka bariga dhexe ka dhigto mid xasiloon darra. heshiisku wuxuu ahaa mid aad si nugul looga wada xaajooday. xukuumaddaasi muddo iyo kooban ayay ku gaari kartaa inay hub nuclear ku samaysato. waxaasna maaha wax la aqbali karo. haddii aan ogolaado heshiiskaas inuu meel mar noqdo waxaa gobolka bariga dhexe ka bilaabanaya tartan xagga hubka. qof walba wuxuu rabaa hubkiisa inuu diyaar u noqdo marka Iran ay diyaar u tahay inay hubkaas samaysato. xaaladdana waxaa sii xumaynaya kormeerka iyo in laga hormaro laga hortago in la khayaamo ama kormeerayaasha ma haystaan meelo fara badan oo ay kormeeraan gaar ahaan goobaha militariga. heshiisku waxa uu ku guuldaraystay in uu kula xisaabtamo Iran heshiiskan lala gaaray iyo inay hubkan samaystaan iyo gantaalada ridada dheer ee bolistikada oo kuwaasoo si sahal loogu xiri karo gumucyo nucleara si loo xakameeyo Iran waxyaabaha ay wado iyo taageerada argixisada. ilaa ay heshiiskii inta la gaaray damuuxaadka ama u hanqaltaagga Iran ay wadato marka la fiiriyo daldalooladan aan idiin sheegay heshiiska Iran waa in dib u heshiisiin looga galaa. On January 12th, I repeated these conditions. waxaan ku soo celiyey shuruudahan. waxaan caddeeyey heshiiskan lama dayactiri karo
haddii maraykanku qayb kama noqonayo heshiiskan saaxiibadooda iyo xulafadooda faransiiska jarmalka iyo waddanka briti kulligood waxaan la tashanay saaxiibadeen iyo saaxiibadeen gobolka bariga dhexe jooga waan u midaysannahay waxaana fahamsannahay khatarta iyo waxaan laga go'an iiraan inaynu marnaba helin hubka nukliyeerka kadib markaan wada tashigaan samaysanay waxaa walwal markii aan wada tashigaan samaynay waxaa noo cad in iiraan aan marnaba laga hor istaagi karaynin heshiiskan aadka u liita inuu ka hor istaago inay iiraan hub samaysato waan ogsoonnaa waxa dhici kara muddo yaroo kooban waddanka adduunka ugu weyn ee maalgeliya argixisada inuu heli doono hubka ugu khatarsan caalamka ee nukliyeerka sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa maanta in dowladda maraykanku inay ka baxayso heshiiskii iiraan lala galay ee nukliyeerka daqiiqado yar kadib waxaan saxiixi doonaa waxaan dib u saxiixayaa heshiis iiraan cunaqabatayntii dib loogu soo celin doona waxaa la saari doonaa cunaqabataynta ugu leer oon ugu weyn ee maraykanka uu ku soo rogo